بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا markale iyo barnaamijkii qobanaha qodobada aan idinkugu haynana waxa kamida Ethiopia oo ka soo yeeray hadalkii ugu horeeyay ee la xiriira mowqifkeeda aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland haddaba muxuu yahay aragtideedu waxaan idin haynaa warbixin amuurtani ku aadan midowga Yurub oo isna si cad u sheegay mowqifkiisa ku aadan arrimaha aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland madaxweyne Putin oo si cad ugu hanjabay in haddii Ukraine ay diido nabad Ruushku uu ku xallin doono colaadda tillaabooyin military hogaamiyaha military ee Suudaan General Al-Burhan oo ku dhawaaqay shuruudo cad oo la xiriira dagaalka ciidankiisa ay kula jiraan kuwa RSF sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay mid ka mid ah wadamada Yurub ayaa bilaabay in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo tababar ciidan isla markaasna lacag lagu siinayo maxay tahay sababtu waan idin faahfaahin doonaa dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa dhankaas iyo magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in haddii Ukraine aysan doonayn xal nabadeed Moscow dhammaan dhibaatooyinka ay ku xallin doonto awood ciidan isagoo ku faanay in ciidamada Ruushku ay sameynayaan horumar degdeg ah waxaana uu ka hadlay ama hadalkan uu ka jeediyey xarunta talis military Putin waxa uu sheegay in wadamada reer galbeedka qaarkood ay kula talinayaan Kiev inay aqbasho shuruudo macquul ah si dagaalka loo soo afjaro balse wuxuu ku eedeeyay hoggaanka Kiev inuusan si degdeg ah u doonayn xal nabadeed Putin ayaa ku adkaystay sheekada Ruushka ee ah in dagaalka uu ka dhashay xaaladii siyaasadeed ee Ukraine ka dhacday isagoo sheegay in Moscow horey ugu baaqday Kiev in dadka Donbas ay siiso xaq sharci ah oo ay ka tashiya ha yeeshee Ukraine ay dooratay jidka dagaalka waxa intaasi uu ku daray in Ruushku uu hadda isku dayayo inuu soo afjaro dagaalka Kiev ay bilowday wuxuuna ku andacooday in howlgal military uusan dhici lahayn haddii Ukraine ay dhageysan lahayd dalabaadka Moscow Putin waxa uu sheegay in rabitaanka Ruushka ee wadahadallo military iyo soo noqoshada ay hoos u dhacday isagoo markaasi daliil uga dhigay dhaqaaqyada degdega ah ee Ruushka wuxuuna sheegay in ciidamada Ruushka ay kordhinayaan cadaadiska dhammaan jihooyinka dagaalka isla markaasna ay qabsadeen dhowr magaalo oo muhiim ah dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka waa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ayaa sheegay in dejinta waqti xadidaysan oo wadahadal lagu gaaro aysan waxba ka tiri doonin xal siyaasadeed oo la gaaro isagoo intaasi ku daray in mustaqbalka Ukraine wali su'aal ay dul hooganayaan dagaalkuna uu socdo xagga Afrika iyo dagaalka Suudaan haddii aynu qoraansano hogaamiyaha military ee kumeel gaarka ee dalka Suudaan Abdul Fattah al-Burhan ayaa daboolka ka qaaday in Khartoum aysan ogolaan doonin xabad joojin ama heshiis nabadeed inta ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF ay joogaan hal taako oo ka mid ah dhulka waddanka Suudaan General Al-Burhan wuxuu xoog saaray in qariirada wadada ee dhawaan loo gudbiyay qaramada midoobay ee uu soo bandhigay ra'iisul wasaarihiisa Kamil Idris ay tahay hindise qaran oo ay dowladda Suudaan ogolaatay isniintii Idris wuxuu hortagay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo soo bandhigay qorshaha xabajoojin guud ka bixitaanka RSF ee meelaha ay gacanta ku hayaan iyo in dagaalyahanada la ururiyo isla markaasna la bilaabo wadahadallo Suudaan dhexdeeda iyo soo dhawaansho dib u dejin dadka rayidka ah si kastaba ha ahaatee RSF ayaa diiday hindisahan iyadoo ku tilmaamtay hadal duug ah oo lagu takoorayo isla markaasna aysan arkin wax dhab ah oo ku saabsan arrimo nabadeed Idris ayaa sidoo kale sheegay in haddii xabajoojin ay dhici weydo ay lama horaan noqonayso in hubka dhigis lagu sameeyo RSF lana geliyo xeriyo gaar ah isagoo ku nuuxnuuxsaday in Suudaan ay tahay dal madax bannaan isla markaasna aysan aqbalayn ciidamo cusub oo qaramada midoobay ka socda wuxuu sheegay in hindisuhu
inuu caddaynayo in dowladda suudaan u ololeynayso nabad halkii dagaal laga sii wadi lahaa. suudaan ayaa tan iyo bishii abriil 2023 waxa ay ku jirtay dagaal u dhexeeya militariga dowladda iyo kuwa RSF, waxaana la sheegay dagaaladaasi in ay sababeen dhimasho iyo dhaawaca kumanyaal qof, halka 13 milyan oo qofna ay ku barakaceen colaadaha waddanka suudaan. haddaba arrinta suudaan ayaa waxay markaa u muuqanaysaa inay kasii darayso maalinta ka dambaysa. hindisihii nabadda ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta Khartoum garafka iyo ku dhuftay hogaamiyaha militariga ee waddanka suudaan waa hogaamiyaha RSF, isagoo diidan in gebi ahaanba ay hub ka dhigaan xabadana ay joojiyaan. waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo RSF dhul ballaaran oo ku yaala Kordofan iyo weliba Darfur ay gacanta ku dhigeen. waa hagaag, waxaan u gudbaynaa goordhow Ethiopia oo markii ugu horreysay hadal ka soo saartay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. inta aan u gudbin wararkaas iyo weliba qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiina. hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka, higaada, axaadiista, ducooyinka, tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha, tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada. waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca. dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado. faahfaahin dheeriya la xiriir WhatsApp-ka +252 633 145 153. wargelin muhiim ah, ma doonaysaa in laga cimreeyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah? wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga. shirkadda Altaqwa ayaa kuu samaysay qiimo dhimis. waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday. haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umra nambarka shaashada kaaga muuqda. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. soo dhawaada markana daawadaya, weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag, arrimaha aqoonsiga Israa'iil iyo Somaliland haddii aynu ku sii soconno, waxaynu eegaynaa markan war ka soo baxay wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. wasiir dowlaha wasaaradda warshadaha Ethiopia Tarekan Baluto Godana ayaa ku tilmaamay aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland inuu yahay tilaabo diblomaasiyadeed oo muhiim ah oo saameyn ku yeelan karta mustaqbalka siyaasadeed ee Geeska Afrika. qoraal kooban oo soo dhigay baraha bulshada ayuu waxa uu ku sheegay in tilaabadan ay noqon karto sida uu yiri mid hagi doonta jihada mustaqbalka gobolka, isla markaasna muhiim ay noqon doonto in si dhow loola socdo saameynta siyaasadeed iyo midda amniga ee ka dhalan karta. wasiir dowlaha ayaa sidoo kale ku sheegay hadalkiisa in arrintani ay tahay war u wanaagsan shacabka Somaliland, taasi oo ka dhigan taageero muuqata oo muujinaysa in mas'uul Ethiopian ah uu taageerayo arrintan, sida ay tilmaameen falanqeeyaashu. hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo gobolka Geeska Afrika ay ka jirto doodo iyo falcelin culus oo ku saabsan xiriirka Israa'iil iyo Somaliland iyo saameynta tilaabadan ay ku yeelan karto xasiloonida gobolka. waa hagaag, intaa marka laga gudbo, ilaa iyo shalay markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu ku dhawaaqay aqoonsiga Somaliland, warar kala duwan baa ka soo baxaya warbaahinta Israa'iil. waxaana ka mid ah in bishii Oktoobar madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirre uu socdaal qarsoodi ku tagay Israa'iil. telefishinka Kanal 12 ayaa warkaasi sheegay. sidoo kale warbaahinta Israa'iil iyo wariyaal ka mid ah iyo dadka arrimahan falaqeeya Israa'iiliyiinta ayaa iyaguna arrintaasi qiray. laakiin arrintan waxaa markii ugu horreysay si dadban u qiraya wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil.
haddaba haddii aynu eegno hadalkan wuxuu soo dhigay iyo sawirkan isla socda bartiisa Facebooka wuxuu yiri sawiradii farxadda lahaa ee xalay aynu ku aragnay wadooyinka Somaliland ayaa rajo abuuraya mustaqbalka waxaan si wadi doonaa inaan si wadi jira uga shaqeyno xoojinta iskaashiga iyo saaxiibtinimada ka dhaxaysa dalkayaga iyo qowmiyadahayaga sawirka madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo aniga ayuu ku qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ma jiro war rasmi ah oo arrintan la xiriira oo dhanka Somaliland ka soo baxay marka laga tago warbaahinta Israa'iil iyo hadalkan uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil waxaad isla arrimahan haddii aynu ku sii soconno midowga Yurub ayaa iyaguna waxay caawa soo saareen bayaankan ayaa waxay ku sheegeen inay ku celinayaan taageerada xooggan soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah safiirka Israa'iil oo dhankiisa difaacay go'aanka ay ku aqoonsadeen Somaliland wuxuuna yiri Somaliland entered that union as a recognized sovereign entity exercising its right to self-determination. Shiinaha, Ruushka, Faransiiska iyo Britain oo si cad u taageeray madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliya kana digay wax kasta oo qatar gelin kara laakiin muxuu noqday mowqifka Mareykanka xog ayaan idinkaga haynaa Iiraan oo si adag uga jawaabtay hadalahan jibaad ah oo ka soo yeeray Donald Trump dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee soo korna intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka Ali Shamkhani oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda ee hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan ayaa sheegay in awoodda gantaalada iyo difaaca Iiraan marnaba aan la xannibi karin isla markaasna aysan u baahnayn ogolaanshaha ama fasaxa cid kale qoraal uu ku daabacay baraha bulshada Shamkhani waxa uu ka digay weerar kasta oo lagu soo qaado Iiraan inuu la kulmi doono jawaab degdeg ah oo aad u adag xitaa mid ka baxsan xisaabta iyo filashada kuwa soo qorsheeyay weerarka isagoo si faahfaahinaya warkiisa wuxuu sheegay in doonista difaac ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ay horay u dejisay qaabab jawaab celina xitaa ka hor inta jawaabuhu aysan gaarin ficil hadalka Shamkhani ayaa yimid kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ugu hanjabay Iiraan in Israa'iil iyo Mareykanku ay duqeyn doonaan goobaha nuclear-ka ee Iiraan haddii ay isku daydo in ay dib u dhisto warkan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa iyadoo warbaahinta Israa'iil toddobaadyadii la soo dhaafay si joogto ay u hadalhaysay arrimaha Iiraan laga bilaabo dib u eegista dagaalkii 12 maalmood dhacay ee bishii Juun ilaa iyo arrimaha jamaadaha oo ay soo jeediyeen saraakiil Israa'iiliyiin ah iyadoo warbixino kala duwanna ay ka digayaan awoodda Iiraan ee xagga gantaalada iyadoo dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi qadka telefoonka oo kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga waa wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga Qatar iyo istaga Imaaraadka Carabta waxaana uu ka hadlay xaaladdan iyo halista ka imaan karta halkaas marka waxaa ka muuqata Iiraan inaysan u libaqsan hanjabaadihii xalay ka soo yaray Donald Trump weliba Israa'iil waxaa leeyahay waxay ka cabsanaysaaba Iiraan inay qaado weerar ka hortag ah hadalka Shamkhani hadda maxaa ku jiray wuxuu yiri jawaabta iyo difaaca Iiraan waxa loo diyaariyay hanaan inta aysan ficil isku bedelin qataro oo macnaheedu yahay ka hortag baa sameyn karnaa waynu arki doonaa wixii wararkaasi ku soo kordha haddaba isla xalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kadib dhowr saacadood oo ay qaateen wadahadallo gaar ah waxay mar labaad qabteen shirkii jaraa'idii hore waxaan idinkugu soo gudbinay barnaamijkii qubanaha laakiin kii dambe oo xalay saqdii dhexe la qabtay aynu eegna wixii ka soo kordhay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale xaqiijiyey taageerada Washington ee Israa'iil u hayso isagoo digniin adag u diray Hamas iyo Iiraan intii lagu jiray shir jaraa'id oo ku qabtay Florida isagoo hareer taagan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu Trump ayaa ka digay in Hamas ciqaab culus ay la kulmi doonto haddii aysan si degdeg ah ugu hoggaansamin
heshiiska xabad joojinta gaar ahaan qodobka ku saabsan in hubka laga dhigo. haddii aysan hubka dhigin iyadoo horay u ogolaatay waxay bixin doonaan qiimo aad culus ayuu yidhi Trump oo carabka ku adkeeyey in Xamaas ay tahay in ay hubka dhigto waqti aad u kooban gudihiisa. wuxuu intaasi ku daray inuusan walwal ka qabin waxa Israa'iil ay samaynayso balse uu ka walaacsan yahay waxa dhinacyada kale ay qabanayaan. Trump ayaa sidoo kale fariin toos ah mar kale wuxuu u diray Iiraan isagoo sheegay in Maraykanku uusan ogolaan doonin in Iiraan dib u dhisto awood military oo ahayd tii laga burburiyey intii dagaalka uu socday ee Maraykanka iyo Israa'iil ay qaadeen. haddii ay isku dayaan dib u dhiskaasi qasab ayay nagu noqon doontaa inaan si dhaqso leh u joojino ayuu yidhi madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Trump ayaa waxa uu sheegay in wadahadaladii uu la yeeshay Netanyahu diiradda sidoo kale ay saareen arrimaha Gaza, arrimaha gobolka oo ay ku jiraan Iiraan iyo Suuriya. wuxuu sidoo kale sheegay suurtagalnimada ciidamo Turkisha oo ka qayb qaata howlaha Maraykanka Gaza gaar ahaan dhanka maamulka. wuxuuna xusay inuu xiriir aad u wanaagsan la leeyahay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan isagoo sheegay in uu yahay nin wax weyn ka qabtay waddanka Suuriya isla markaasna meesha ka saaray nidaamkii wasidalka u dhigay kaliya taliska ahaa ee Bashar al-Assad. hadalkaas markuu sheegayay warbaahinta oo dhan waxay hadalhay sida Netanyahu u fiirinayay Trump. wuxuu yidhi saaxiib baynu nahay, waa nin wax weyn qaban kara, ciidankiisana waxaa rajaynayna inay ku soo biiraan howlgalka Maraykanka Gaza. Syria wax weyn buu ka qabtay, aad buu u ammaanay. Netanyahu laakiin aad buu u fiirinayay markaas. shirka jiraad dhammaadkiisana waxaa la su'aalay diyaaradaha F-35 ma laga iibinayaa Turkiga. dabcan arrintan Israa'iil aad bay uga soo horjeedaa sababtoo ah Israa'iil waa cidda kaliya ee haysata diyaaradahaasi F-35 bariga dhexe oo idil. wuxuu yidhi arrintaasi waan ku guda jirnaa, macnaha haah iyo maya midna ma oran. halkaas markaa sheekadaas aynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa calay iyo golaha ammaanka mariyihii dhiigga lahaa ee la kala furtay iyo wixii dhacay. waxaan idiin soo gudbinaynaa Maraykanka oo mowqifkiisa caddeeyey, waddamada Ruushka, Shiinaha, Britain iyo Faransiiska oo iyaguna ka digay faragelin ugu sameeyo madax bannaanida Soomaaliya, iyo maxaa kala qabsaday safiirka Israa'iil iyo safiirka Soomaaliya. intaan u gudbin wararkaas aynu ku hakanno qadar xayeysiina. qari online waxa uu diyaar idinla yahay barashada maadooyinka qur-aanka kariimka ah, higaadda iyo asaasiyaadka diinta islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal wiig oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta, taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin. macallimiintu waa khuburo, macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay, iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qari online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada qari online, la xiriir ciwaanada iyo telefoonnada shaashadda kaaga muuqda. ku soo dhowow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic. Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumarba leh. xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso. xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca, ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon, fariin qoraal ah ama online. waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas. xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London, xaafadda caanka ee Shafar Bush. wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit, oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. soo dhowaada markana dacwadaya weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo si toosa idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. sidoo kale waxaad kala socon kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com.
ku xirna wajibiyaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka hagaag markan waxaynu aadaynaa dhankaas iyo magaalada New York iyo xalay wacdarihii ka dhacay xalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu yeeshay shir looga hadlayay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland waxaana shirkan dalbaday wadamo Soomaaliya ka mid tahay oo ay taageerayaan Ruushka iyo Shiinaha doodii marka xalay waxay ahayd warbixino ma ahayn dood cod loo qaadayay macnaha Israa'iil waa qaldan tahay iyo ma qaldana ayay sheekadu ahayd laakiin ma ahayn arrinta arrin cod gaartay golaha ammaanka wuxuu u fariistaa dhowr qaybood oo kala duwan mar albaabada u xiran lama ogola dad inay joogaan iyo warbaahinta marna waxaa loo shiraa in warbixino la soo jeediyo warbixinada marka qaarkood waxaa lagu daraa codayn marka xalay waxay ahayd oo keliya arrinta dhegaysi waxaana ahayd ashtako ka timid Soomaaliya laakiin wadamo kale ay ku taageereen in laga doodo waxaa kaloo isla xalay lagu dhawaaqay Soomaaliya in la wareegayso madaxweynenimada bisha January ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay bacdama 15 wadan bishiiba wadan uu qabto xitaa 5 wadan codka veto-ga leh iyo 10 wadan ee kale la soo doorto dhammaantoodba qof kasta bil buu qabanaya ama dal kastaba marka xalay Soomaaliya ay lagu wareejiyay hadaba intaan la soo gudbin wixii kala qabsaday safiirka Soomaaliya iyo safiirka Israa'iil waxaan ku hormaraynaa Mareykanka wakiilkoodii hadaladii halkaasi ay ka sheegtay waxaana ay sheegtay in ay ka hadashay dhowr arrimood oo kala duwan haweeneydan oo lagu magacaabo Tammy Bruce waa ku-xigeenka danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay haddaba aynu dhegaysanno hadalkeeda Israel has the same right to conduct diplomatic relations as any other sovereign state. Israa'iil waxay xaq u leedahay si la mid ah dal kasta oo madax bannaan oo kale in uu samaysto xiriir diblomaasiyadeed. Earlier this year, several countries, including members of this council, sanadkan horaantiisii dalal badan oo ay ku jiraan xubno ka tirsan golahani made the unilateral decision to recognize a non-existent Palestinian state. waxay si iskooda u doorteen inay u aqoonsadaan dowlad Falastiin oo aan jirin. And yet, no emergency meeting was called. haddana ma jirin kulan degdeg ah oo loo yeeray to express this council's outrage. si loo muujiyo carada arrintaas laga qabo golahan loogu soo bandhigo. This council's persistent double standards golahani si joogta waxa ugu badan laba wajiranimada and misdirection of focus taasi oo ka jeedinaysa hawshii weyneyd distract from its mission of maintaining international peace and security. ilaalinta nabadda iyo ammaanka caalamka. On the matter of Somaliland, marka laga hadlayo arrinta Somaliland, we have no announcement to make regarding U.S. recognition of Somaliland. ma hayno wax cusub oo ku saabsan aqoonsi Mareykanka uu siiyo Somaliland. And there has been no change in American policy. mana jirto wax iska bedelay siyaasaddii Mareykanka ee Soomaaliya ku wajahnay. Thank you. waa mahadsantahay. waaye haddaba Mareykanku mowqifkiisa halkaas ayuu dhigtay. dhinac marka la eego Israa'iil waxay samayn kartaa wax ay doonayso iyo cidda ay aqoonsanayso si la mid ah sida golahani ay u aqoonsadeen dowladda Falastiin oo kale. marka waxay leedahay dowladda Falastiin dowlad jirta ma aha laakiin arrintan waxaa ka jawaabaya madaxweynaha bishan December ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waan u imaan doonaa sheekadaasi intaanan u gudbin markaa ee Soomaaliya waxaan ku hormaraynaa oo kale safiirka Israa'iil waa ku-xigeenka safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Jonathan Miller hadaladiisii waxaa ka mid ahaa Somaliland entered that union as a recognized sovereign entity. Somaliland
waxay midowgaas la gashay iyadoo ah dal madax bannaan oo la aqoonsan yahay exercising its right to self-determination. kuna dhaqmaysa xaqeeda ayakatashiga. That union failed to produce a durable or fully ratified constitutional settlement. midowgaasi ma uusan soo saarin nidaam dastuuri ah oo waara ama si buuxda loo ansixiyey. Political marginalization, repression, and mass violence followed. waxaa xigay takoor siyaasadeed, caburin iyo tacaddi ballaaran. When the Somali central government collapsed, Somaliland reasserted its sovereignty in May 1991. markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay, Somaliland waxay dib u soo ceshatay madax bannaanideeda bishii May 1991. For more than 3 decades since, it has existed entirely outside the authority of Mogadishu. in ka badan 30 sanana waxay si buuxda uga baxsanayd ama aysan ka tirsaneyn awoodda Muqdisho. Since 1991, Somaliland has consistently met the objective criteria for statehood under customary international law, as reflected in the Montevideo Convention. tan iyo 1991 Somaliland si joogto ah ayay u buuxisay shuruudaha dowladnimada ee qaanuunka caalamiga ah sida ku cad heshiiska Montevideo. 1. It has a permanent population. waa tan koowaade waxay leedahay bulsho. 2. A defined territory. tan labaad waxay leedahay dhul cad oo qeexan. 3. An effective government. tan saddexaad waxay leedahay dowlad shaqaynaysa. 4. The capacity to conduct foreign relations. iyo tan afraad oo ah awood ay kula macaamisho dhanka diblomaasiyadda. In fact, Somaliland has held regular competitive elections, ensured peaceful transfers of power, and maintained effective governance and security throughout its territory. dhab ahaantii Somaliland waxay qabatay doorashooyin lagu tartamay oo joogto ah, waxayna xaqiijisay in maamulka ama xukunka si nabdoon la isugu wareejiyo, isla markaasna waxay ilaalisay maamulkii iyo amnigii oo wax ku ool ah guud ahaan dhulkeeda. In a region marked by instability, Somaliland has demonstrated continuity, responsibility, gobol ay ka jirto xasilooni darro, Somaliland waxay muujisay joogtayn mas'uuliyad iyo isxakamayn. and restraint. Moreover, Somaliland's engagement with the international community is intaa waxaa dheer, Somaliland xiriirkeeda caalamiga ah waa mid sii socda oo ficil ku dhisan. already sustained and practical. Several states maintain representative dhowr dal ayaa xafiisyo ama wakiilo dhaqaale ku leh Hargeysa. liaison or economic officers in Hargeisa. These relationships reflect ongoing diplomatic, economic, and development cooperation. They also reflect xiriiradani waxay ka turjumayaan iskaashi diblomaasiyadeed, dhaqaale iyo horumarineed oo socda. an acknowledgement in practice of Somaliland's capacity to govern responsibly. isla markaasna waxay muujinaysaa aqoonsi ficil ah oo ku saabsan awoodda Somaliland ee maamul wanaagga. Israel's recognition builds on this reality. aqoonsiga Israa'iilna wuxuu ku dhisan yahay xaqiiqdan. halkaas marka waxaa ka muuqata in danjire ku-xigeenka ama safiir ku-xigeenka Israa'iil uu si adag u difaacay mowqifkii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee jimcihii uu ku aqoonsaday Somaliland. waxaa kale oo ka hadlay arrimo fara badan. dabcan khudbaddu way dheereed. wuxuu ka hadlay dhibaatooyin soo gaaray. wuxuu kaloo ka hadlay oo uu soo bandhigay warqad uu yiri xilligii 1990kii dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre ay jirtay in goboladaasi dhibaato iyo xasuuq loo geystay. sida uu yiri wuxuu yiri xilligaasi Israa'iil oo kaliya ayaa golahan waxay u soo gudbisay in wax laga qabto dhibaatadaasi, sida hadalku u dhigay. laakiin maxaa dhacay marka? Abubakar Cismaan Baalle, safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay, 2 mar buu hadlay. marka koowaad wuxuu aad uga hadlay, dabcan asaga hadalka bilaabay,
arrintan Israa'iil ay samaysay xadgudubka ay ku samaysay Soomaaliya madax banaanideedii arrimahaas oo dhan buu ka hadlay gobolka dhibaatada ay ku leedahay buu ka hadlay wuxuu kaloo ka hadlay in ujeedada Israa'iil ay tahay sida uu yiri dadka Falastiiniinta in la soo barakiciyo marka arrimo badan buu ka hadlay khudbadiisii khudbadaas markuu dhameeyay ilaa 6 daqiiqo ayaa safiirka Israa'iil ku xigsaday oo khudbadan u jeediyay kadibna wuxuu yiri mikrofoonka hal la isii mikrofoonka baa la siiyay marka labada khudbadood dabcan barnaamijkan ugu dheeraanaya tii daba soo qaadanayna wuxuuna ka hadlayaa sidoo kale arrimahan uu sheegay in Somaliland xasuuq ka dhacay oo arrimahaasi oo dhan iyo dhibaatooyin kale oo dhacay laakiin jawaabtiisa aynu marka hore uu ka bixiyay hadalada safiirka Israa'iil aynu ku bilowno. The representative of Somalia has asked for the floor to make further statement. I give him the floor. waxa uu weydiistay mar kale inuu hadlo wakiilka Soomaaliya marka isaga ayaan siinayaa mikrofoonka waxa sidaas ilaa madaxweynaha. Thank you, Mr. President. madaxweyne waad mahadsan tahay For giving me again the floor. Before proceeding further, I want to make additional remarks. ka hor inta aan sii wadin waxaan rabaa inaan sameeyo arrimo aan cadaynayo In my capacity as a Somali representative of Somalia to directly address aniga ku hadlaya magaca iyo wakiilka Soomaaliya the claims made by the representative of Israel. si aan si toos ah uga jawaabo eedamaha uu sheegay wakiilka Israa'iil who spoke before me. oo hadlay intaan anigu hadda aan hadlin iga horeeyay. I will make 3 points. Excellent. marka waxaan rabaa inaan ku